Toddobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran ay wadaan wadahadallo wanaagsan oo wax ku ool ah si dagaalka loo joojiyo, laakiin Iran ayaa si cad u beenisay. Mas'uuliyiinta Iran waxa ay sheegeen in wax wadahadallo ah aysan dhicin. Afhayeen ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ayaa xitaa ku qoslay isaga oo yiri Mareykanku isaga ayaa isla hadlaya. Waxaana muuqata farqi weyn. Washington waxa ay sheegaysaa horumar halka Tehran si buuxda ay u diiday arrintan, waxaana ka dhalatay kalsooni darro aad u qoto dheer oo u dhaxaysa labada dhinac. Sanadkii la soo dhaafay, wadahadallo ayaa dhexmaray dhinacyada iyadoo rajadu ahayd in xiisadda la yareeyo. Wareeggii ugu dambeeyay ayaa Mareykanka muujiyay walwalkiisa ku aadan barnaamijka nukliyeerka Iran, laakiin wadahadalladaas kadib Mareykanka iyo Israa'iil ayaa mar kale weerar militari ku qaaday Iran. Iran waxa ay u aragtay in wadahadalladu aysan yareyn fursadda dagaalka. Taasi waa sababta dadka qaar ugu shakiyaan hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Si kastaba ha ahaatee, diidmada Iran macnaheedu maaha inay gebi ahaanba ka soo horjeedo wadahadallada. Xitaa dadka taageera diblomaasiyadda waxa ay dareemayaan cadaadiska dib u bilaabista wadahadalladu waa arrin halis ah. Mana jirto caddeymo muujinaysa in markan ay wax ka duwanaan doonaan sidii hore.